Taliyaha qaybta gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd oo maanta si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen khasaare uu geystay baabuur shalay gelinkii dambe ku dhacay afaafka hore ee biriishka weyn ee magaalada Burco kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Barasaabka iyo taliyaha amuurahani ka hadlaya waxaa hadaladoodii ka mid ahaa afar qof baa ku dhaawacmay oo kulli ay ugu daran tahay qof dumar ah oo lug la gooyay aan filayo lug la gooyay Hargeysa loola cararay ilmo yarna uu ku dhintay dhimashaduna ilmaha yar bay ahayd kulli halkan bridge afkiisa ahayd marka labada baabuur mid baa isku dhacay mid baa sii dhaaf gaari kale dabeedna tiktak hortimi gaari crown buu ahaa marka san filayo dabeedna waa ninka arkay halka ay isla tageen labada gaari kuwan halkii shamaxle looga beeri jiray jaranjarada waa ka sii goostay iyo halkaas ay iskala dhaceen. sidoo kale taliyuhu waxa uu baaq u diray gaadiidleyda isagoo ku booriyay inay ka fogaadaan wax kasta oo naftooda halis gelin kara. dadweynaha gobolkan aan u soo jeedinaya iyo dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha ku nool mujtamaca ku nool in hadiyo jeer taxadar badan la sameeyo la taxadaro baabuurta dadka iska leh ay u dhiibaan dad mas'uul ah dhalinyarada hadiyo jeer cajalada dhageystaan muxuu ahaa dhagaha waxay gashadaan iPhone bay gashadaan muxuu ahaa gaariga siday doonaan bay u kaxeeyaan in ay waxaas oo dhan ka taxadaraan oo qofku ogaado waxaan uu gacanta ku hayaa inay tahay mas'uuliyad aad u culus. waxa la isla wada qirsan yahay dhibaatooyinka dhacay imika ka dhacaya gobolka ama Soomaaliland ee shilalka gaadiidku in aad u fara badan yihiin taa waxyaabo badan baa sababaya caruur yar oo tahriib looga baqay oo ama tig loo iibiyay ama baabuur kale loo iibiyay oo aan mataqaanaa dhibta geysanayaan intaasiga soo gaaraysa Ali Cabdikariin Xaaji shabakada caalamiga Hiral News magaalada Burco.